wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warkii caalamka qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doona faahfaahin dheeraad oo ka soo baxaysa saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya oo qarax lagula eegtay gobolka Shabeellada Hoose. askar Soomaaliya oo la soo warinaya in lagu dilay dalka Itoobiya gaar ahaan dagaalkii ka socday gobolka Tigreega. madaxweynaha maamulka Puntland oo digniintii ugu cusub u jeediyay dadka baraha bulshada wax ku qoray ee maamulkiisa ka soo horjeeda. ciidamadii galmudug ee baryahan gadoodsanaa oo mushahar loo qaybiyay iyo kooxda Man United iyo Liverpool oo caawa foodaystay doona qodobada kale ee barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid soo dhawaada warkii oo dhan aanu ku bilaabane faahfaahin dheeraad ayaa laga helayaa saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya oo qarax mina lagula eegtay magaalada Afku iyo duleedkeeda. saraakiishan oo ay la socdeen gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose Cabdilqaadir Maxamed Nuur Sidi ayaa wararku waxa ay sheegayaan in halkaasi uu laba sarkaal oo ka tirsan ciidamada kumaandooska Danab qarax mina lagula eegtay. Axmed Beryare oo ahaa taliyaha ciidamada Danab ayaa waxaa qaraxaasi uu ka soo galay dhaawac culus isna iyo taliyihii ciidamada Danab ee guutada tobnaad oo lagu magacaabo Axmed Gaashaan ayaa waxaa la soo sheegayaa in isagana dhaawac xog leh uu ka soo gaaray. waxaa loola cararay xalane oo xukumaan Amisom halkaasoo dhaawacyadooda lagu daaweynayo. gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose Cabdilqaadir Maxamed Nuur Sidi oo ka yimid gobolka Shabeellada Hoose kuna soo jeeday magaalada Afgoy ayaa waxaa la soo sheegayaa in halkaasi qaraxaasi uu ka badbaaday. saraakiisha halkaas ku dhaawacmay ayaa iyana loola cararay cusbitaalada kale ee ku yaala magaalada Muqdisho. faahfaahin dheeraad ayaa laga helayaa waa ciidamo askar ka tirsan dowladda Soomaaliya oo lagu dilay dalka Itoobiya. wararka ka imaanaya dalka Itoobiya ayaa waxa ay sheegayaan in saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya oo halkaas tababar lagu qaaday halkaas ay ku dhinteen. inta la xaqiijiyay askar ka badan 12 ayaa ku dhintay halka dhaawacna uu gaarayo in ka badan 200. wararka ayaa waxay sheegayaan in saraakiishaasi halkaas lagu dilay ay ka diblageliyay dagaalka ka socda gobolka Tigreega ee dalka Itoobiya halkaas oo dhaawac culus uu ka soo gaaray ciidamada ka tirsan dowladda Soomaaliya iyo waliba dhimasho. ciidamadan oo loo qaaday dalka Eritrea ayaa waxaa la soo sheegayaa in la geliyay dagaalkaasi halkaasna ay ku dhinteen askar ka tirsan dowladda Soomaaliya oo halkaas loo qaaday. wararka ayaa waxa intaasi ku darayaan in dhaawacyadaasi lagu daaweynayo dalka Eritrea gaar ahaan magaalada Asmara ee caasimadda dalka Eritrea. madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Cabdilaahi Dani ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in dadka baraha bulshada wax ku qoraya ee maamulkiisa dhaliilaya in ay tallaabo adag ka qaadi doonaan. madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Cabdilaahi Dani oo magaalada Qardho ugu soo xiray ciidamada daraawiishta Puntland oo tababar halkaas uga socday waxa uu shaaca ka qaaday in marnaba aysan suurtagal ahayn in gabi ahaanba maamulkiisa dhaliil xoog leh loo jeediyo oo dadku ay dhaliilaan. ururo ayaanu u furnay oo ay ku soo biiri karaan halkaasna dowladda ay ka mucaaradi karaan, laakiin ma suurtagelayso in dowladda ay burburiyaan oo ay wadooyinka taageero ku gubaan dad ka baxsan maamulka Puntland oo meelo kale laga taageerayo. waa sida uu yiri madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Cabdilaahi Dani oo magaalada Qardho kala hadlayay maanta warbaahinta. waxa uu intaasi ku daray inaysan marnaba suurtagal ahayn in maamulkiisa la iska dhaliilo isagoo oo shaaca ka qaaday in marnaba maamulkiisa uusan u baahnayn dhaliil uusan lahayn, laakiin loo baahan yahay dhaliisha in qofku dhaliil cad uu keeno. Siciid Cabdilaahi Dani ayaa waxa uu ciidamo badan oo ka tirsan maamulka Puntland u soo xiray tababar halkaas Soomaaliya uga socday u tababar uga socday. Siciid Cabdilaahi Dani ayaa waxaa dadka qaarkood ay baraha bulshada ku dhaliilaan isagoo oo sheegay in marnaba suurtagal ayna ahayn in baraha bulshada la iska dhaliilo. Dani ayaa sidoo oo kale waxaa dadku ay ku xustaan in ciidamo badan oo Puntland ilaa intii xilka uu qabtay uu tababar u soo xiray ciidamadiisa, laakiin dadka qaar waxa ay dhaliilaan inuu sixir barar u horseeday maamulka Puntland intuu xilka hayay. ciidamo ka tirsan maamulka
galmudug ayaa maanta waxaa loo qaybiyey mushahar kadib markii ay baryahanba gadoodsanayeen ciidamadan oo ku sugnaa degmada Galinsoor ee gobolkaasi Galgaduud ayaa waxaa gabi ahaanba maanta laga qaaday wadooyinka ay xirteen kadib markii mushahar loo qaybiyey ciidamadan oo ka tirsan ciidamada daraawiishta galmudug oo ku sugnaa degmada Galinsoor ee gobolkaasi Galgaduud ayaa waxaa maanta gabi ahaanba ay baneeyeen wadooyinka ay horey u xidheen kadib markii ay u tageen mas'uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug kooxda Liverpool iyo kooxda Man United ayaa waxay caawa fooda isku dari doonaan kadib markii ciyaar xoog leh la filayay halkaas inay ka dhacdo Man United oo hadda si ku meel gaar ah u haysa xulka Premier League dalka Ingiriiska ayaa waxaa la soo sheegayaa inay halkaasi caawa fooda isku dari doonaan taageerayaasha ugu badan ee kooxaha kala taageeraya soo camiri doona garoonka halkaasoo muddo saacado ka bacdi ay fooda istari doonaan labadaasi kooxood waxaana la filayaa in dad badan caawa ay garoonka sii buuxiyaanba kadib markii ay dad badan oo taageerayaashaasi ay kala taageeraya halkaasi ay ku sugan yihiin waxaana xilfaad weyn oo ka dhaxeeya labada kooxood ee Man United iyo Liverpool guud ahaan warkii caalamka waad kala socoteen channelka kulana Abshir Joker YouTube-kana intaas nabadgelyo. You couldn't wish the ball to go to anyone else.